dee gaadhi waa gaadhigii diinta gaadhiga u qalma diinta baashan qiiqa tuuraysaa waa lagaga habboon yahe kuwa u qalmo oo aan xabad qiiqii ka soo baxayn wanaag fariis maaribta taariikhda ugu weyn waxa weeye 22 sano shaqaynayso falilahi alhamdu wal minna walisim birraha kutimi ma jirto فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها waxaan imika gudoomiye uga dhignay cabdi xuseen ninka la yiraahdo cabdi xuseen furule magac dheer ayaa markaa gudoomiye u ah ku-xigeenna waxaan uga dhignay odaga xaaji cabdilaahi oo isaguna markaa kolkii horeba odayaasha markaa silliga u soo hayeen habeenna ka dhaqaaqina xogayana waxaan uga dhignay subeer daawud ibraahim maaha uun inaynu ku mashquulno dee halkii laga soo bilaabay intii uun hay in la ballaariyo la doonayaa ducaadina waxa kale noo qorshaysan inaan markaa waxa weeyaan maadaama diincayga halkaan iska dhignay waxa inagu badan maanta waalidcayga hooyadii qaaliga ahayd iyo aabihii qaaliga ahaydna soo koriyay 24 saacadood agteena lagu caayaa maynagamay mutaysan waalidku in la caayo kuwii ka yaryaraa inay waxaasi wax fiican yihiin u bay arkeeno iyagoo xaafadooda joogo is odhanayaan kii hooyada halkaa waxaa ka bilaabantay inuu dhaqankeeniiba bedelmo waxaan leeyahay waa garab taagan anagu cid kasta hadduu yahay oo uu dembi galo sharcigu maanu marina ku soo carray aniguna sheekhiyo gaadhigii loogu dhex galaan ka daba galo nimankii baan kolba mid dib u soo qabto inta dhabarkaasaa buud laygala dhacaya waxaan idin sheegayaa waxa weeye afartan dhalinyar iyo odayaal isugu jira ma aha guddigu waa ummadoo dhan idinkaa ka mid ah من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. wanaag fariista waxa laga yaabaa dad fara badan inay yiraahdaan hoos u dhigan ilaahan maxay qabatay waxaan oran karaa waxa weeyaan waxaynu ummadda dheerahay weey ummadda Soomaaliyeed waxyaalahaynu dheerahay gaari kaliyaanu lahayn oo Cabdilaahi Xaaji baa lahaa markatu yar buu lahaa gaariga Cabdilaahi Xaaji baan kolka qof la soo ama dhowr qof la soo qabtay jeelka lagu xidho saldhigga iyana maxkamadda uga sii horeyn jiray ونرجع الروان صوتنا كودين عاي إلهي عاي من صوتنا هنجسيتين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آية هاي بين خميسة وآية نسكون نمت إن كنت جاني halka ay maraysaa in isla socodsiino mowduuca anu aan ku leeyahay ee la yidhi waxa weeye guddiga wanaag farista iyo xumaanreebinta degmada Turbo Jaale maraaxishii ay soo martay iyo siday kusoo bilaabantay raggii madaxda ka soo noqday iyo ragga iminka loo dhiibay ilaa intaasoo aan soo dhex joogay waxaa la Soomaalidu doqonnimo jirtay baa wax la weydiiyay أنا كل دخول يوم يجتمعون ترى على ذا المرفوع اللي يزور الرئيسي قلت له أنا فرست السنة ولا وهاي نوع أساسي وضيال تقيتيا مقالة الرئيسية كأساسي أخوان مدني علم ما يلهاي لكن إيماني الدين دينات ما يلهاي دين دينات ما كذي تبدأ واحد بدك واحد مرة سامانتا inay tuulo kasta iyo magaalo kasta oo magaalada Soomaaliland ka mid ah farac ay ku yeelato ay gaadho odayaasha asaasiga waxaa ka mid ahaa xaaji doolar raximahullahu tacaala intoodii badnayd aakhiray maanta jiraan raggaa dhintay ee guddida inoo asaasay waxaynu marka hore inaga mutaysteen inaynu u ducayno إلهي سبحانه وتعالى قبرك هو نوره ميزانك حسناتك الله وقدره إلهي سبحانه وتعالى وحي جيستين أبالك وضرب تبارك وتعالى آخرك السيء هل كامر كيمر يسوع لو ضياش مركي هرجيسك أساسين وضياش مركي ورسيه حكوا أساسين إن يدتك إلهي يدينته يا ملائكته يا النبي يا مقدس أساسين حكم إذا حاج دولار رحمه الله تعالى intoodii badnayd aakhiray maanta jiraan raggaa dhintay ee guddida inoo asaasay waxaynu marka hore inaga mutaysteen inaynu u ducayno ilaahay subxaanahu watacaala qabriga ha ugu nuuro miisaanka xasanaadkana allah ugu daro ilaahay subxaanahu watacaala wixii ay geysteen abaalkooda rabbi tabaaraka watacaala aakhira ku siiyo halkaa markay marayso odayaashii markay hargeysa ka asaaseen odayaashaasi markii horreysay waxay ku asaaseen inay dadka ilaahay iyo diinta iyo malaa'igta iyo nebiga iyo muqadasaadkeena caaya inay wax ka qabtaan xaajidoon wuxuu odhan jiray anigu cilmi meliyo budkaasaan sitaayo ninka diinta caayunbaa budkaa la dabagalaayo sidanu eryanay inbuu booliska u dhiibi jiray sidaasay dabeedna ku asaasmeen waxay noqdeen dabeedna inay gobolladii iyo degmooyinka gaadhsiiyaan maalintii ugu horreysay ee wajaale yimaadaan waxay u baxeen magaalada boorama la idhaahdo waxaa la socday sheekh daawud maax axmed oo caawa inala fadhiya oo runtii isaguna kuley marxaladeeda ka qaadan doona ka warrami doona markay boorama ka soo noqdeen ee ay galbeed soo marayaan uu sheekhu aniga ay soo garaacay masaajidkaa uu sheekhu iminka tukiye masjiduraxma la idhaahdo baan markaa tafsiirka ka akhriyaa wuxuu caawa waxaan soo wadaa guddidii wanaag furista inaad tafsiirkii noo baajisaan doonayaa marxabiyo guddoon baan ku idhi masaajidkii baanu u diyaar garaynay odayaashii way noo yimaadeen rag badan oo dharaartii kuwii casharka ku taxnahay waabay igula dagaalameen oo odayaasha qaarkood ka mid yihin waxaan adoo aad akhriyaysaa mar kitaabkii ilaahay bay idhahdeen adoo kitaabkii ilahay akhriyaad cid kale mikrofoonka loogu dhiibaysaa aad u fasax qaadanaysaa bay igu idhahdeen odayaashii runtii si fiican bay noo abaabuleen fadhiga ka kaca bayna yidhaahdeen aasaasayaashii guddida iyagu wayna kiciyeena waxa ahaa yuusuf maxamed xasan oo yuusuf cali aad u taqaanaan aniga oo ku daba socday runtii dabeedna masaajidkaan jimcihii dambe ka kacnay 15 nin 25 nin baan ujeedaa oo reer wajaalo ah oo culimo iyo cuqaal iyo duqeytiba leh ayaanu liiskooga xaadirnay
ninna guddiiday ma yeelana intiiba way ka howlgaleen runtii guddoomiyihii ugu horreeyey ee guddida aanu magacno waxaa xaaji cismaan ibraahim raximah allahu tacaala markuu muddo 2 sannadood hayay eetii ilaahi subxaanahu wa tacaala u timid isagana waynu u ducaynaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala godka ha u nuuro qabrigiisa ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo rawda min riyaad aljanna waxaa guddoomiyihii ku xigay uu noqday maxamed jaamac madar raximah allahu tacaala isaguna adduunyada waa ka tegey waynaynu u ducaynaynaa qabriga ilaahi subxaanahu wa tacaala isagana ha u nuuro guddoomiyihii saddexaad wuxuu noqday ugu muddada dheeraa reer Roojaale sheekh axmed cabdilaahi qaalib oo beri dhaweyd inaga geeriyooday isagana allah u naxariiso markay laba guddoomiye iska raaceen bas guddoomiyihii saddexaad waxa ku dhacba waa la waayo nin walba wuxuu waa ninkii meesha guddoomiye kan odama malaha u dhimanayaayo waan wada baqnay soo dhayan baasha iskaga dhiibnaa markaas la yidhi axmed oo markaa naga yar maqnaa marka hore guddiga ku jirin waana axmed aynu yeedhan maamulkana waxbuu ka yaqaanaayo ninkaasi wayna kicinayaayo waa nin maamul hore soo maray axmed adaa dadka ugu daaweyn baan kuli raggiisa u wada baqdayo nin walba wuxuu isiri malaha bahasha geeridu bahasha bay la socotaaye bahashii maamulkeedaan ku dhibaynaa umar cabdiyo guddoom bidhi axmed wuu qabtay muddo dheer buu runtii guddoomiye ka ahaa si fiicanna wuu soo hogaamiyey taasi waa raggii soo hogaamiyey ee markaa qabtay guddida wanaag fariistu waxyaabahay qabatay waxaa ka mid ah masaajidka aan kitaabka ku akhriyo hortiisa magaaladana way koobneedoo baabuurtaa laga rari jiray baabuur yaryaroo markatu iyo balaybas laho markaasaa wax diinta iyo malaa'igta caayama wax kale aanay ka shaqayn jirin markaasaa markaanu masaajidka ku jirno dhagaan isqaban jirno ciise haddaan ku goxno wax diinta iyo malaa'igta caayana maca dawladdu way iska dhagalayd wax la odhan jiro diinta mataadu caaya adiga maxaa kaa saaran baa la odhan jiro kolkay dawladduna kuu qaban waydo dadkuna kuu qaban waayaan adiga oo dhaga haysayo un baanu dhaafi jirnay waxyaabaha ay ku guulaysatay guddida wanaag fariistu waxaa ka mid ahaa magaalada khaasatan fii Roojaale in aan ka sarxinay waxa la yiraahdo wixii malaa'igta iyo ilaahay iyo nabiga caay jiray dhammaan ka sarxino sanadkii ugu horeysay 85 qof baan u dhaadhicinay maxkamadda gabeele baan ku wada xidhnay waxay gaadhay markaa in la yiraahdo ninka jijiga ka soo baxaya iyo ka burca ka soo baxaya iyo ka hargeysa ka soo baxayaba magaalada Roojaale xisku waxay diinta waa lagu xidhayaa intaanu diro wala iska soo galay oo kolku diintii malaa'igta ay dhabsineen dabadna 6 bilood dalacnay baabuurkiisa halka kaga dalacmay tiriya cadad may lahayn markii dambe waxay noqotay in kishbeega xataa la soo dardaaramay soo gaadhay waxay soo gaadhay runtii in magaaladan daanta inaga xigtay shishay de khamrigiiba halka yaala inta qaar sakhraamaan inaan wariyaha kolkay sakhraamaan wardaanta isku tagin ilaahay diinta lahaaba jooge ay hadalada soo gaadhay runtii wax badan bay qabatay maanta maqlimaysid magaalada Roojaale nin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta iyo malaa'igta caayso waana masalada ugu darnayd ee kufriga iyo gaalnimada ahayd ee dadkeenu ay sameeyaan laguna rugmanay halati labi rasuulka kaleey salaatu wasalaam laakiin de waxay noqotay hadaan dili kaleena wax sharcina kufri kaleyn bal dhageeyna una ka ilaalino wixii diinta iyo malaa'igta caayay ay arag noqdaan qodobka ugu weyn markaa guddida qabatay kolay intaas ahaa guddoomiyihii ugu dambeeyay markii uu geeriyooday waxa simeelku gaadha ee guddida u sii hayay xaashi xuseen qayaad ninka la yiraahdo oo runtiisa si fiican u sii daadihinayay waxayna la noqotay markaa xaashi uu inaga xanuunsaday xogaa faalija yar taabtay carabkiina hadalku ku yar adkaaday deedna waxay noqotay markaa waa bal guddidii odayaashii in badan bay soo wadeeneen dhallinyarada iskaga wareejino dhallinyarada markaa u magacawnay waxaan iminka guddoomiye uga dhignay cabdi xuseen ninka la yiraahdo cabdi xuseen furule magac dheer ayaa markaa guddoomiye u ah ku xigeenna waxaan uga dhignay odaga xaaji cabdilaahi oo isaguna markaa kolkii horeba odayaasha markaa sirliga u soo hayay aan habeenna ka dhaqaaqina badan la ilaahay nasiiyay ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo markaa la difaacayo laga difaacayo cidda aflagaadeynaysa ee gaalada ah baynu markaa isugu nimid ama waxa weeyaan markaasi guddidu ay ka shaqaysaa waxa ugu weyn ay ka shaqaysaa kaawis weyn kolley guddida wanaag farista sheekh maxamed baa ka sheekeeyey dadkii la bilaabay magaalada Hargeysa iyaan ka mid ahaa kolley aniyo maxamed sheekh maxamed haybeel waxaan u qaabilsanayn qaybta wacyigelinta markaas odayaashaas sidoo ilaahay waxa weeye sidoo sheegay sheekh maxamed ilaahay u diray
wax fara badan bay ka qabteen waxaan garanayaa sanadkii la aasaasay ee diincayga laga shaqeeyo roob khayro caadihi uu ka da'ay waddanka ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala roobka keenayey baa la aflaagaadaynayey oo lagu gaaloobayey runtii waxa weeye wanaag farista iyo xumaan reebista way kala saraysaa mar waxaa la iska nahiyaa oo la isku diidaa wax gaalnimo ah marna waxa weeyaan wax macsiya guddiga waxa weeye wanaag faristu shayga keliya ku calamadsan tahay waxa weeye wanaag farista ugu weyn oo ah in la difaaco ilaahay tabaaraka wa tacaala in la difaaco nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in la difaaco diinta mana waa qani marka ilaahay wuxuu yidhi sidaa nimankaa yahuudeed nebi ibraahim ee nebi muuse ay u dhibeen nebi maxamed ha u dhibina oo ha noqonina maxay ku dhibeen waxyaalahay ku dhibeen waxaa ka mid ah xadiiska saxiix sheegayo waxay yidhaaheen nebi muuse waxyaaluhu inoogu dhex maydhan laayay sidan innagoo iskugu dhex maydhananeen qaaqaawanahay sheeluu leeyahay bay yidhaaheen sheelo ayuu leeyahay sheeladan waynu naqaanaa dee waa xanuun ku dhacaa waxa weeyaan ragga ku dhacaa kadibna maalin buu isagoo maydhanaya dharkii buu dhagax dul dhigto oo dhagaxii baa la cararay dharkii markaasuu reer bani israa'iil ula galay isagoo eryanaya isaguna dhagaxoo dharkaga ii dhigle ayuu reer bani israa'iil ula galay waxay ogaadeen inaanu sheelo lahayn oo caadi yahay bay ogaadeen sidaasuu ilaahay ku bari yeelay bal nebi ibraahim waxay ku dhibeen nebi muuse waxay ku dhibeen reer bani israa'iil sheeluu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo geeriyoodoo dhintay maanta dad fara badan baa laga kari laayay oo iska daa inay sheelo ku sheegaane waxa weeyaan ka xun ku caayaya waayo andaro weeye waxa weeyaan markaa wanaag la isfarayo xumaanta la israbaa way kala waaweyntaystaa aynu soo sheegnay arrinkan aynu u fadhino ama guddidu waxa weeyaan markaasi ay waxa weeyaan u markaa idman tahay ugu horreeyay ka shaqeeyaan waa munkarkii ugu weynaa oo ah ilaahay tabaaraka wa tacala ila aflagaadeeyo nebi maxamed la aflagaadeeyo sala allahu calayhi wasalam waxaan garanayaa xaajidoon ilaahay u naxariistee iyagoo diincaygii meel fiican dhigay ayaa waxa magaalada hargeysa ku batay kiristaan la faafinayey oo hay-ada faafinayeen oo waxa weeyaan markaa kutub yaryaroo sida xisnu muslimka intay laaleegiin af soomaali ku qoran kuwiibuu markaa soo qaqabtay oo kuwiibaa markaa la xidhxidhay xaajidool ilaahay u naxariistee waxaa laga soo ashkateeyey ingiriiska kaniisada ingiriiska ku yaalla waxaan faafinayey baa markaa ina cigaal ku soo ashkateeye waxay idhaaheen qolada halkaa waxa weeyaan ka shaqaysa maanad ogeyn ee noocaas ina cigaal ugu waraysto yaa ka madaxa buu yidhi xajidool baa la yidhi xajidool isaga wadaad baa ahaa buu yidhi isagoo kii geerashka lahaan jiray sidaayasa ahaan jiray waa ninka soo qabto waa la xidhay kolley odayaasha markaa laga warramay wanaaggaasay u soo mareen badankoogiina way dhinteen sida in kirishbayga lasoo waxa weeyaan markaasi dardaarayo la leeyahay diinta caayn kirishbayga diinta lagama soo dardaarayo naftiisa loo dardaaraya hadda diintiina uu caayaya waxaa la ilaalinayaa lafihiisana la ilaalinaya la leeyahay aan lagu xidhine diinta isku caayn laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهد له إلهي سوكين كان هلكن إنه أفردنا أرن خير له أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن وناكنا لا يسفره حمانتنا لا يسكربه وحاول أنت أن فردنا وحنيونينا اعتكاف عبادة كجرنا وحويا والله ليال لجنة يا تاريخ ذا شيخ محمد بكسو شيكي إلى خير السيو وحن دعاء وقدر يا رقي ووينا وضيا شاها انتنا اسكت إيمان ميسو هدان وقفك وقت جيسة كجوينين وأنو الدين تدال كذا قلينين دين تدسكوا إيمان ميسو وحل الدنيا الدين تما لقوا إيجيا واحد كجيسة la eegaya ma garanaysa maad iska ag martaawnoo cibaadaadkun haddaad tidhaahdo shanta waqti un baan halkaa tukanaya amru bilmacruufna samayn maayo ciddii samaysana waxba igama gelin lana shaqayn maayo haddaad tidhaahdo waa dembaabaysa لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قف كستو مسلمة واجب بكتاي إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمات إنه حمانتنا ريبه وناجنا
inuu wanaagga reebo wanaagga amro xumaantana reebo waajib bay ku tahay hadday markaa guddi isku xilqaanto fardulcayn bay ku noqonaysaayo intaa isku xilqaantay way ka dhacayaa kan kale qofkan kale waajibkiisu haddii cid isku xilqaanta la waayo oo magaaladiina wajaale la waayo cid ka shaqaysa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dhammaanteen waan dambaabaynaa horta sidaa in la ogaado ayaa fiican qofkuna waxa fiican lajnadaasi inuu ama ka mid noqdo oo dadka u qumay ee magaranaysa isku magacaabay uu ka mid noqdo ama uu caawiyo oo kaalmeeyo qof saddexaad loogama baahno halkaasaan iska fadhiyayaa cid dacwad ka shaqaysiyo diin ka shaqaysana waxba odhan maayo aniga salaadayda ilada oo salaadaydan baan wadayaa ku bixi maysid maalinta qiyaamaha waxaad tusaale ka soo qaadataa dadkii laga nahiyey maalinta magaranaysa sabtida ah kalluumaysiga dadkaan laga nahiyey kalluumaysiga waraaqahaasoo dhan soo samayn intaa markaan soo samaynay baa hawsha la bilaabay tiyo meel kasta aan soo xidhnay sidaasay ku dhaqaaqday oo ay dacwaddaasi inoogu socotay waad ogeydeenoo daanteennaasi markuu xagga u tallaabo firii buu ahaayo wax kasta wuu caayay rag baa markay halkan ku caayaan baxsan jiray oo tallaabi jiray nin waxaan garanayaa intuu caayay wasiiladda ku caayay orodna lagu soo qaban waayey tallaabay 3 bilood markuu maqnaa ayuu noo yimid uu yidhi war waa kanoo dadweynaha meesha isugu yimiday ee masaajidka khayrka la isugu yimiday aad iyo aad baan dhammaantoodna salaamayaa intaa ka bacdi waxa weeye kolley dadkuna waa badan yahay arrimihii khayriga ahaana in badan baa laga soo hadlay sidaa laga soo sheekeeyey culimmadii soo aasaastay iyo ciddii ku daba socotay iyo odayaashii wajaalayna oo keenayba waa laga soo sheekeeyey halka ay noo marasana kolley dee waa ma garanaysaa aynu ognahay in badan horta ree wajaale dee waynu ognahayo wixii la soo maray aad iyo aad baa loogu faa'iiday xumo reemista iyo wanaag farista waxaa imika markaa aad yaro moodaa in intii dhexdii ahayd ay waxyaro dabceen oo intaa ma garanaysaa odayaashii hore soo waday ay meesha dee ama daaleenba ama ay ka baxeenba in aad arrintaasi loogu adadkayn waxaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsannahay in dhiig cusub lagu shubo in wakhtigu uu isbedelayaaye dhallinyar hawsha lagu wareejiyo dee wakhtigeedii weeye xilli waliba rag buu leeyahay taa aad baanu soo dhawaynaynaa waxaad og tihiin ciidamada kuweennii hore ma garanaysaa dee waa weynaaday iminka in la bedelay waad og tihiin oo dhallinyare ay shaqayso oo ninkii waayey lahaa inuu dee xafiiska fadhiyo u maamulo mooyaane dee ciddii orodka wax ku soo qabanaysay ayaa ciidamada laga sameeyey siiba bileyska waxaana looga baahan yahay innagana in halkaa dhallinyar ay hawsha maamulaan dadkuna ay la garab galaan sidaa laga soo sheekeeyey waxba lagaga noqon maayo intaa culimmadu ka soo sheekaysay kolley annagu guddidii xubnahaanu ka ahayn intii annagana la dahaydna wax yar baaba ka sii jooga waxaan aad iyo aad maaragtay ugu maaragtay bogaadinayaa dadkii siday noola garab qabteen sidii wax loo soo waday sidaa wax walba loo soo tirtiray maanta halka ay taagan tahay الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني كل لجنة هل كان أنفردينو إن أرين كذا ما أنت هو فردينو dee taariikh fara badan oo ay leedahay oo durtaba aad u facweyn baa laga soo sheekeeyey lajnada maalintii la sameeyey ilaa yowmina haada waan soo garab taagnaa markii hargeysa laga aasaasay annagoo dhallinyar yaryara walaa imika ma weyni baan u malayn waan soo garab taagnaa sabab fara badanoo waxa weeye halkaa waxa weeye wakhtigaa dhacday
oo imika aynaan waqti u helin inaan ka sheekeeyo ayaa sabab u ahayd oo xataa aniga laygu xidhay oo 3 habeen jeelka ugu jiray baa lajnadaba sabab u ahayd caaw horteedna kama shanqarin imikana u banbixi maayo ka sheekayn maayo guddidii laakiin meel wanaagsan bay waxa weeyaan markaa la soo kifaaxeen ay soo mariyeen ay soo dhigeen dee waxaa la yidhi raqba waa ku raggeed maanta waxay taagan tahay in dhallinyartii gacanta laga soo geliyey dhallinyartii maanta haddaba waxaa la doonayaa inay si waxa weeyaan aad u hufan oo odayaashu siday uga soo shaqayn jireen iyo si ka sii xeel dheer sababtoo ayagu aqoontiina way hayaan dhallinyartu maanta oo waa culimmadii waddanka ama culimmadii gobolka ama culimmadii degmada oo da'yartiyabaa loo dhiibay waxaa laga doonayaa markaa inay meelo fara badan milicsadaan ayaa la doonayaa oo ay kow ka tahay halkaa ay waxa weeyaan khayr badan allaha siiyo ducadii ay culimmadu u duceeyeenna allah inoo aqbale halkaa ay odayaashaasi soo dhigeen inay iyaguna ka sii ambaqaadaan qodob labaadna ay ku darsadaanoo dee soomaalidu wixeenuba hadduu waxa weyn oral noqdo oral history taariikhdeennuba hadday afku noqoto waxyaabaha lagu dabargo'o ama ay taariikhdu ku lunto waxaan u soo jeedin lahaa dee taariikh ka sameeya oo halkaa ay ka soo bilaabantay iyo siday odayaashu dacwadda uga soo shaqeeyeen taana bugaa ka qoraan odhan lahaayoon u soo jeedin lahaa guddoomiyaha guud maanta waynala fadhiyaa baan filayaa sheekhii waxa weeyaan in wixii reference lahaado oo tixraac u lahaado oo wax dee waxa weeyaan markaa lagu soo hirto oo waxa weeyaan si fiican waxa weeyaan loo jeclaado inuu noqdaabaa la doonayaa markaa taariikhdeennu si aanay u lumin intii sheekh maxamed ka sheekaynayo keliya baa haddii la qoro waxa weyn cilmi dhani ku duugan yahay markaa taa iyada waan u soo jeedin lahaa waxaa kaloon u soo jeedin lahaa guddiga cusub iyo guud ahaanba lajnada oo caawa guddoomiyihiina inala fadhiyo ku dadaala lajnadu inay hay-ad noqoto hay-ad iminka waa guddi qaran oo dowladdu aqoonsan tahay inaad hay-ad isku beddeshaan oo aqoonta waxa weeyaan wax ka qayb qaadata oo ducaad soo saarta ducaad berrita maalin adduunyada waxa weeyaan waddankeenna markay beddelaan adduunyada beddela soo saara inuu hamigii noqdaaba la doonayaa maaha uun inaynu ku mashquulno dee halkii laga soo bilaabay والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka hore allah subxaanaه wa tacaala ayaa mahad iska leh iskuu keenay majliskan barakaysan iyo masaajidkan barakaysan ee macmuurka allaha subxaanaه wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allah iskuu soo kuga kulmiyey inagoo ka warramaynaa difaaciisa iyo difaaca diintiisa iyo difaaca nabigiisa sala allahu calayhi wasalam innagoo markaa waxa weeyaan garab taagan sidii ilaahi subxaanaه wa tacaala aan u difaaci lahayn diintiisa iyo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wanaaggana ummadda aan u fari lahayn xumaantana uga reebi lahayn intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan marti sharafta iyo dadkayna soo ajiibay ee waxa weeyaan inay halkan iyo xafladdan inagala soo qayb galaan wakhtigoogii qaaliga ahaa ku bixiyey hadday tahay taliyaha markaa waxa weeyaan saldhigga guddoomiyaha guud ee markaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista sheekh muuse ee waxa weeyaan xogayaha isna guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee guud sheekh muxyidiin
gudoomiyaha gobolka Gabiley Sheekh Xasan waxa weeyaan xogayihii oo isna halka fadhiya Sheekh Xasan warmahaye xildhibaan Cali diktoorkeena sheekheena magaalada iyo dhammaan markaa waxa weeyaan marti sharafta kale ee markaa waxa weeyaan ka soo ajiibtay ee halkan fadhida waan mahad celinaynaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin mar labaad waxaan u mahad celinaynaa dhammaan bulshooyinka reer Wajaale oo si weyn markaa waxa weeyaan uga howl qaadeen waxa weeyaan uga qayb qaadatay wanaag farista iyo xumaan reebista si weyn lajnada u taageertay yar iyo weyn markasta markaa waxa weeyaan u taagan waxa weeyaan in xumaantaasi la suuliyo wanaagana dadka lagu faafiyo waxaan u mahad celinaynaa gaar ahaan dadka markaa waxa weeyaan adduunkooga markaa waxa weeyaan had iyo jeer lajnada markaa waxa weeyaan la garab taagan sida markaa waliba kaalmaha Sheekh Mustafa halkay nagala joogay ama ninka la yiraahdo Sakaaro markaa waxa weeyaan meelaha soo dhafareystaan rajeeninay iyo dadka kale ee markaa waxa weeyaan khayrka jecel ee 24 saacadood markaa waxa weeyaan markaa gudida wanaag farista garab taagan ee waxa weeyaan markaa hooyo heelba la ag taagan waxaynu markaas si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa tariyaheena qiimaha badan leh magaaladan Wajaale oo isna waxa weeyaan si fiican oo markaas si hufan noola shaqeeyo gudida ula shaqeeya markaa isagu markaa waxa weeyaan ka u taaganba inuu waxa weeyaan nooga sii horeeyaba ama markaa waxa weeyaan 24 saacadood gacmo furan nagu soo dhaweeyo ku soo dhaweeyo lajnada iyo gudida wada marka horeba gudida waan la shaqeyn jiray xilka markaa waxa weeyaan lay magacaabay maahay inta kadib wax qabadka la soo sheegay ee Sheekh Yuusuf iyo Sheekh Maxamed ay soo qabteen gudidii hore ee markaa waxa weeyaan hanaanka u soo haysay gudida wanaag farista way ku amaanan yihiin khayr Allah siiyo hawl weyn bay soo qabteen waxay soo qabteen markaa saa laga soo sheekeeyeen Wajaale waxa weeyaan laga tirtiro laga dabar jaro wax diinta caaya cid la qabta markaa waa cid amba meel kale laga soo bedelay ama socota ama meel kale ka yimiday way yar yihiin waxa reer Wajaala markaa waxa weeyaan diinacay ku dhiirada maanta waa Ilaahay fadligiisa iyo managiisa iyo karamkiisa waana markaa waxa weeyaan dadaalkii ay sameeyeen odayaashaasi jazakumullahu khayra Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka balmariyo waxa noo qorshaysan inaan Ilaahay difaacno oo ay markaasi waxa u qorshaysan waxa noo qorshaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan difaacno iyo nabigiisa sallallahu alayhi wasallam iyo diintiisa way noo qorshaysan tahay inaynu halka kaga sii hayno dhamaanteena way noo wada qorshaysan tahay markaa waxa kale oo markaa noo qorshaysan Ilaahayna subhanahu wa ta'ala aan ka rajeeynaa inuu la qabto bulshada reer Wajaale aan ka codsanayna in la qabtaan waxa weeyaan aroosyada in wareeriyay inaan markaa waxa weeyaan dhinac uga soo wada jeesano waxa weeyaan bilaabmaya kowda habeenimo labada habeenimo la bilaabayo muusiga waxa weeyaan waaga loogu barinayo ummadii dhibay jaarkii dhibay waxa weeyaan markaa laga seexan laayahay fasahaadkii xumaantu ay ka socoto inaan gacanta wax kaga qabanaa waa tunoo qorshaysan waxa kale noo qorshaysan inaan markaa waxa weeyaan maadaama diinacayga halkaan iska dhignay waxa inagu badan maanta waalidcayga hooyadii qaaliga ahayd iyo aabihii qaaliga ahayd soo koriiba 24 saacadood agteena lagu caaya maynagama mutaysan waalidku in la caayo xaqna inooguma laha waana dambi weyn waa kabiiro weyn oo markaa waxa weeyaan diinacaygiina ku xigta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siraaciyay xaqiisa iyo xaqa waalidka in fara badan kitaabkiisa marka xaqa Ilaahay marka la difaacno xaqi waalidka inaan ku xijisiino iyadna waa talaabada labaad ee doonayna inaan qaadno taana waxaan ka codsanaynaa markaa dhammaan bulshada reer Wajaale inay gacan naga siiyaan waxa weeyaan taliyahana iyo booliskana inay gacan naga siiyaan iyo ciidanku oo inuu arrinkaana waxa weeyaan dhinac uga soo wada jeesano oo inuu inaga markaa waxa weeyaan arrinkaana ka tirtirno meesha waxa kale oo inoo qorshaysan inaan dhalinyarteena oo wixii soo korayay dhaqankooga aad buu u liitaaye iyagana markaa waxa weeyaan dhaqankooga aan toosino oo waxa weeyaan 24 saacadood gidaaray taagan yihiin
halkay wax ka baran lahaayeen wax ka akhrisan lahaayeen goobaha waxbarasho ay aadi lahaayeen waxaad arkaysaa iyagoo 20 iyo 30 waxa weeyaan markaa gidaarada wada taagan oo waxa weeyaan xilliyada dambe waliba waxa weeyaan markaasi urursan oo waxa weeyaan waxay ku fogan yihiin aynaan garanaynin taana waxaan doonaynaa markaa inaynu gacan wax kaga qabanno inaynu markaa waxa weeyaan wax ka qabanno inaan inagoo gacmaha haysaysano dhammaanteen waxa weeyaan dhalinyarteenu waa kuwiina beledelaye saynu u toosin lahayn markaasi iyadana markaa waxa weeyaan ka shaqeyno kullay waqtigoo gaaban inahaasaan markaa waxa weeyaan kusoo gunaanadi lahaa